spina bifida waa xaalad congenital ah, micnaha waa xaalad lagu dhashto oo saamaysa lafdhabarta, waxaana lagu gartaa in ay xirmi weyso ama xirmin la'aanta lafdhabarta inta lagu jiro korriinka uurjiifka. Spina bifida waxay dhacdaa marka tubada neerfaha ama neural tube-ka oo aakhirka isku bedeli doonto maskaxda iyo lafdhabarta iyo unugyada ku xeeran ama ku hareeraysan ay ku guuldareystaan in ay si fiican u xiranto inta lagu jiro bisha ugu horeysa ee uurka. Maxaa sababa xaaladan? Sababaha saxda ah si buuxda looma garanayo, laakiin waxay u badan tahay in ay ku lug leeyihiin arrimaha ay ka mid yihiin nafaqo-yarida, folic acid oo ah mid ka caawiyo horumarinta neural tube-ka ama tubada neerfaha, maqnaanshaha folic acid 3 bilood ee ugu horeysa uurka. Ilmuhu wuxuu ku dhalan karaa spina bifida. Sidoo kale genetic factorska iyo family history oo ah qodobada hidde-sidayaasha iyo taariikhda qoyska. Haddii ay haweeney dhasho ilmo qabo spina bifida, waxaa jirta fursad ah in ilmaha kale uu dhalan doono isaga oo qabo spina bifida. Tani waxay ku badan tahay dumarka marka loo eego ragga. Sidoo kale daawooyinka sida anticonvulsantska, daawooyinka loo isticmaalo qalalka. Arrimaha waxaa kaloo ka mid ah xaaladaha sida sonkorowga, buurnaanta ama cayilka, iyo qandhada ayaa sidoo kale kordhin kara fursadaha dhalmada ilmo leh spina bifida. Spina bifida waxaa loo qaybiyaa ilaa 3 nooc. Nooca ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa spina bifida occulta. Occulta micnaheedu English ahaan waxay noqonaysaa hiding, oo taasoo micnaheedu noqonaysa spina bifidaha qarsan. Ciladan caadi ahaan waxay ku kooban tahay lafdhabarta oo keliya, waxaana sabab u ah vertebral arch-ga ama qaansada dambe ee lafdhabarta oo aan xirmin. Tani ma laha cilad muuqato oo dibadda ah, waxay ku dhacdaa inta badan aagga lumbosacral ama qaybta dambe ee lafdhabarta. Badanaa qofka waxaa ka soo muuqan karo barar oo timo leh, bar madow ama barar ka sareeya meesha ay saamaysay. Spinal cord-ka iyo neerfayaasha sida caadiga wax dhib ah ma qabaan, waana nooca ugu fudud ee spina bifida, ma laha calaamado. Sidoo kale badanaa daaweyn uma baahna. Nooca labaad waxaa loo yaqaanaa meningocoela, waa nooc naadir ah oo kiish dareere ka buuxo ay ka soo baxaan qaybta furan ee lafdhabarta. Kiishka waxaa ku jiro xuubka ilaaliya spinal cord-ka, laakiin aan ahayn neerfayaasha lafdhabarta. Sida caadiga ah wax xubno neerfa ah kuma jiraan, laakiin kaliya waxaa ku jiro CSF oo ah cerebrospinal fluid iyo meningiska. Nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa myelomeningocele ama spina bifida cystica, waana kan ugu daran, halkaas oo kiish dareere ahi ay ka soo baxaan daloolka lafdhabarta kana kooban qayb ka mid ah spinal cord-ka iyo neerfaha. Tani waxay keeni kartaa dhaawac ku yimaada neerfaha iyo naafanimo. Calaamaduhu aad bay u kala duwanaan karaan iyada oo ku xiran nooca iyo darnaanta spina bifida, waxaana ka mid noqon kara nooca ugu horeeya spina bifida occulta. Inta badan ma jiraan calaamado, balse haddii ay wax jirayaan, arrimo khafiif ah ayaa jiri doono sida barar timo leh, bar madow ama bar ka korayso meesha ay saamaysay. Nooca kale xiga meningocele caadi ahaan wuxuu leeyahay calaamado fudud sida dhibaatooyin yaryar oo kaadi haysta iyo sidoo kale dhibaatooyin dhanka shaqada mindhicirka. Nooca ugu dambeeya myelomeningocele wuxuu leeyahay calaamado aad u daran ee ay ku jiraan curyaan, daciifnimo dhanka lugaha ah, dhibaatooyin mindhicirka iyo kaadi haysta, dhibaatooyinka lafaha sida clubfoot, hip dislocation, scoliosis. Dhammaan waxaan aan sheegayay sawiradooda ayaa idin tusayaa. Sidoo kale dhaawac maskaxeed iyo hydrocephalus, taasoo ah in maskaxda biyo ay galaan. Baaritaanada xanuunkan lagu ogaado ama lagu xaqiijiyo in uu jiro prenatal test oo ah baaritaanada dhalmada ka hor, sida baaritaanada AFP oo micnaheedu tahay alpha fetoprotein, iyo sidoo kale ultrasound iyo baaritaanada dareeraha amniotica. Intaasba waa lagu ogaan karaa dhalmada ka hor. Sidoo kale sawirada sida X-ray ama raajada lafdhabarta si meesha looga saaro occulta spina bifida, macnaha spinaha bifidaha qarsan. Sidoo kale ultrasound-ka ee uurka inta u dhaxayso isbuuca 6 ilaa kan 8. CT scan iyadana waa la isticmaalaa si meesha looga saaro hydrocephalus. Sawiradana kama marna MRI. Daaweynta spina bifidaha, ma jiro daawo ka daaweyn karta spina bifida. Unugyada khaasatan unugyada dareemayaasha ee dhaawacmay lama hagaajin karo, sidoo kalena shaqadoodii dib looguma soo celin karo. Qalliinka waxaa loo sameeyaa in dib loo celiyo meningiska ama xuubka banaanka yaala, sidoo kalena la xiro halka ka furan lafdhabarta. Qalliinka waxaa la sameeyaa 24 ilaa 48 saacadood kadib dhalashada. Waxaa kaloo jiro qalliin lagu daaweynayo hydrocephalus. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alle idmo. Khayr badan.